بدن كوي ديبا جرا بس اوغيهين ما ديبان بس waxay galeen heshiiska waa inay galaan ba ma ahayn ayay galaan ba ma ahayn laakiin xalaaliyaha qaranku Axmed Al Dahri wuxuu yiri inay galaan sax yahay ninkaas warkiisa kuma jiro ayuu kamid yahay ayuu kamid yahay ayaga hadda isku dadafiraya marka nin walba dhaaya anigu saas ma ahayn marka hadda runtina waxa la sheegay madaxweynaha iyo prime ministerka iyo wasiirka saxaaba aniga wasiirka laftiisa afkiisa iga yiri madaxweynaha iyo waxa wata prime ministerka arinta waana qalad bay galeen wadaas wasiirka waxa ahaa ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Shukur wuxuu ahaa iskaashiga xiriirka caalamiga marka isaga ku yiri waxa watay markuu aniga Nairobi markaas joog maalinta saxiixay maalinta ku tagay hotel warinaad raadiga maxaa waxaan ku geeyay wasiirkaaga haboon ayaa jira oo wasiirkii badda iyo kheyraadka badaha iyo waxa jira kii foreign-ka jira xadiga u geey bahasha waxa watuu yiri madaxweynaha iyo prime ministerka waxay yiraahdeen saxiixada meesha joogay hadii kale istiqaala diib marka aniga labadaas ay ugu doonaato yiri inaan mid xusho inaan istiqaala diib oo dawladda ka baxo inaan bahasha saxiixo waxaan doortay inaan bahasha saxiixo marka saasoo ayagu leeyahay ayagu madaxweynaha hadda kii madaxweynaha hadda beeninayaan maqlaa oo warkaas laakiin hadduu raalli oo ka ahayn bahasha dhan ma socoteen dawladdiisa iyo wasiirkiisa iyo prime ministerkiisa ma socoteen marka hadda la isku turtuuraya Sheikh Sharif wuxuu yiri inta saxiixitaankii memorandum of understanding dhexmaray Kenya iyo Soomaaliya adiga iyo Umar Cabdishaq darawal ka ahaydeen anigu ma ogeyn waxana kama ogeyn ku yiri memorandum of understanding la saxiixay wali ma akhriseen ma aragteen wali ila qabteen ku jirta ma waxa ku jira bad la iibiyay ma waxa ku jirta bad la bixiyay kuma jirto waxa dhan waa la siyaasaday badan oo hadda ani marka iimaanaya soo baxayso oo dadka loo abaabulay maxay tahay badda hadda lama la qaatay ismarka وحقرت سوما بدأ الشكل هذا سياسة واي وحقرت سوما رئيس وزراء أيدين جوابي وزير كأيدين جوابي أنا قربوا أركن بقى وقال له صحيح أنا ما أركن ما له صحيح أنا ما أوجي وإحنا كم أوجي هذا في عنتها دتك أسا إسكالة هذا حماتنا أيق إسكالة There's no reason madaxweynaha wadanku uu yiraahdo xumuuqi marka aad waxaan rabaa in sheegtid iyo Umar Cabdirashiid madaxweynaha ma ogeysiiseen in arrintan saxiixsan u sameeyeen ogeysiin waxaan ku seexana policy yahay amarkooda madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waa ogaay waa ka qanciyay aniga xaqiijinta madaxweynuhu ogaay anaaba ku sheegay madaxweynaha inuu og yahay oo ka qanciyay oo dadka khubarada ah ee arrinta Sheikh Sharif wuxuu afkiisa ka sheegay meesha lagu saxiixin uusan joogin waxna uusan ka ogeyn arrinta ayada adigu waxa leedahay uu og yahay aniga teedan oo hadli karaa teedan oo hadli karaa aniga madaxweynaha inuu og yahay waxa jirtay dhawaan waxa loo balansayaa maxkamad oo dhinaca badda Soomaaliya arrinta badana waxa la sheegaa inay soo bilaabatay isku qabsiga dhinaca Kenya iyo Soomaaliya xilliga madaxweynaha ahayd oo wasiir loo sheegay in ay saxiixeen arrintaasna wixii waxaan moodaa inaan jeceshahay inaan ka hadlo arrimahaas ma jecel inaan ka hadlo marka waxaan jeclaanahay halkaas inaan siyaasaddu waxay ku fiican tahay u diyaar garowday marka uma diyaar garowin aniga Shariifka ayaa kaalin ku lahaa heshiiskii xaraashka badda Soomaaliya marka ugu horeysa dawlad waxa laga marmaan in heshiis gasho ay imaanaysa waxa dawladdu ay ka hadlaysaa ama xukuumaddu ay ka hadlaysaa oo wax la wada gartay oo la fahmi karo ahayn laakiin haddana waxa dhacda nasiib darro dad badan in ay sameeyeen propaganda ka soo horjeeda heshiiskaas halkan waxa uu ku sheegayaa in baarlamaanku ay diidan yihiin heshiiska badda ee Kenya ra'iisul wasaaraha aydin jawaabay wasiirka aydin jawaabay aniga rabo arkin ba warqad lagu saxiixana ma arkin meel lagu saxiixana ma ogi waxna kama ogi midani waa qayaano cad oo waxa uu dafiray markii uu kursiga ka digay laakiin Xasan Sheikh ayaa si cad ugu eedeeyay isaga kuwa aan ka hadlayay ee nadayacay shalay si غير mas'uulnimo ah u sahladay badeen inay baxdo ama dana gaar ka qaatay ayaa maanta jaakadaha u soo xirtay haddana xukunka dalka inay qabtaan muddadii uu xilka hayay waxa uu bedelay 3 xukuumadood 3 sano gudahood
sheekh shariif ayaa muddo kororsi sameeyey muddo 1 sano ah ayuuna ku darsaday waqtigii loogu talagalay waqti aan ahayn sanadkii 2012 waxaa $42 milyan oo dollar uu ku qarash gareeyay sidii uu mar labaad ugu soo laaban lahaa kursiga